kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeennii Ramadan show waad kala socotaan telefishinka Home Cable TV iyo sidoo kale barnaamijkan waxa uu ka imanaya maanta oo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa oo noo diyaariyay goobtan quruxda badan shirkadda Dahabshiil Motors iyo Hyundai waxa maanta garabkayga fadhiya laba qof oo runtii dadweynuhu aad u yaqaanaan midna codkiisa aad loo jecel yahay midna jilaanimadiisa iyo kaftankiisa aad loo jecel yahay waxa weeye waxa halkan fadhiya aniga laftigeyga qosley baan barnaamijka bilaabin waa jilaashare isku filan waxa weeye waa aniga laftigeyga sacab ugu tooyay sidoo kale halkan garabkayga fadhiya fanaan aad u caana fanaan sare saaxiibkay Cabdibaar Gacale Cabdibaar Gacale dadana sacab ku tumaysan waa ka jarraya anigu isku filan markaan arko ma garanaysaa aniga laftigeyga barnaamijka isku filan waxaan ku weydiin lahaa bilowday dirtaba waa bilaawayna su'aalaha midna bilaawayna goormaad ogaatay inaad ku magaranaysaa wanaagsan tahay jiritaanka iyo ruwaayadaha soo bandhigidooda markaan dhashay maaha waxay jirtay 2015 baan runtii ogaaday laakiin daway ka horeysay waxyaabo badan ka horeeyay oo iskuulada kale iyo xafladaha markii la leeyahay kale iyo daway ka qosin jiray laakiin mid muraayad ka soo muuqato TV iyo media soo gasha ma ahayn 2015 baa markaa igu horeysay oo aan isku arkay inaan media ka soo muuqan karo markaa TV-ga qaranka ka qabtay barnaamij loo tiriyay Somaliland Got Talent barnaamijkaas aan ka qayb ahaa aniga jilayaal badan kooxo badan kaas aan ku soo baxnay aniga fanaaniin badan markaa halkaas aad nagu horeysay halkaas aan u shaqo media ha laakiin iskuulada ma daawin jirin iskuulada aad ma daawin jirin kubadda la agteeda mid la ilaaha illa allah magacii lagu yaqaan dusi lagu yaqaan miyaa kubadda agta laacibanaha dusi waxaan buurno baad aragtay imka caloosha yeeshay marka laacib wax yaroo dhuuban baan ahaayo gaabanoo ilaahay garanaya lambarkeed xiran jirtay kubadda agta kolba lambar waa la koray kiilay ka saartaa kolba lambar mar 3 mar 7 waan soo xidhay tan qudhiis waan soo xidhay ilaa coach kooxaha keed jecel kooxaha kubadda agta kuwa dalka mise kuwa dal iyo dibadba dee dalka waxaan daawadaa gaashaan iyo maaliyadda baan taageeraa dibaddana Real Madrid baa ma Aasiya ma Yurub ka dhigo Yurub Manchester United casaankaad casaanka shayaadiin alxumraa aad bad mahadsantahay waxaan jeclaan lahaa su'aal kale inaan ku weydiiyo isku filan dadku ku qosliya dad fara badan ku qosliya aniga iyo qosliya Cabdibaar Gacale ku qosliya taageerayaal fara badan baan garanaysaa oo leeyahay ku qosliya ma jira hal saddex shakhsiyo adiga ka qosliyo aad magacaabi karto caaw oo karto isku filan laftigiisa cid ka qoslisa laakiin kan la fadhiyo way ku qosliya Cabdibaar Gacale wala ku quraatay ku qosliya quraantii marka jilayaasha laga imaado dadka caadiga aan jilayaasha ahayn hadda jilayaasha din walba way ku qosliya ninkan daawada marka way ku qosliya wax wanaagsan oo soo daaya laakiin dadka aan jilista aan badanaa waxa jira dad badan oo aan jilis looga baran haddana jira yani ka jilis anaga naga jilis badan naga qosol badan baa jira moogtaa marka ninkan ay ku dhisay waa iga qosliya nin aan saaxiibnana weeye fanaaniinta dee waa nin aan iskaga dhownahay ما شاء الله صاحبك ودي ساقر عاوي قرب فدان وان aan codkiisa taageero ninkan aniga laftaygu waa taageero aniga iga reebay baasoo ka heesa baase marka baasaha asxaabta qaar baa garanay muumin kartaa de baasaha ma aqoon isaga ay dhacleeyay baasuu waxa weeye isaga weydii doona waa cod yar oo hoos oo guuxiyo oo hoose oo fanaaniintu lagu itixaami jiray deberkii hore marka ninkan waa aabaha baasaha aku warabe gawdhi marka ninkan waa qosliya ma sha Allah waa taan ka imaado shilaasra isku filan waxa sugna dhankayga bidix fadhiya fanaanadooda taqaanaan Cabdibaar Gacale isagana aan imaado Cabdibaar intaana su'aalaha kala gelin waxaan jeclaan inaan ku weydiiyo isku filan waa maqlis waxa igu qosliya Cabdibaar Gacale adiga ka qosliya marka oran lahaa boota iga horiyay horta waxaa leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta jooga Ramadan Kareem ay Ramadanteeda inuu gaarsiiyo bashbashi barwaaqo isku filan
horta waa ninka keliya aan iskugu badannahay jilayaasha aad isugu dhowdiyo jifcaaga aad baan u salaamayna aniga isku filan iyo abshaar gacali waa ninka keliya iga qosliya hay marka abtigaygu igu horxaday way taxaali lahay wey gabadhe ninkan howl badaya howl badan abshaar gacali dee heesa badan baad leedahay fankii waad ku dhex jirtaa imika fankii laftigiisu sii casriyoobaya teknolojiyadii magaranaysaa waxyaaba fara badan baa dee garab socda maxaad mustaqbalka ka rajaynaysaa fankooda imika ku jirto abjibaar ahaan halkeed jecesha inaad ka gaadho wallahi horta dee fan ahaan marka la eegayo qof kuuli fankii waxaan ka gaadhay halkaa iyo halkaas qof baan ku sheegay fan darajo laga gaadho ma jirto marka waxaa odhan lahaa un anigu فنان بدل هو كفناك halkii waa kugu dhameeyey ama santa abjibaar gacali yaad ku dayataa fanaanintii hore kale waad soo odhan kartaa 2-3 fanaan oo kale waa fanaankan abjibaar gacali ahaan anagu waan dhegaysto kale aan jecelahay codkooda ma garanaysa aan dhegaysto allah u naxariistay Umar Lul Cali allah yarxamo waa bir Ramadaan ilaahay qabriga u nuuriyo amiin amiin isna Maxamed Salmaan Tuba isna waa dhintay allah u qabriga u nuuriyo iyo min nool sheego min nool abti ma ku darsana wala soo dhintay asaga darsa kee ku dara ka taashaytay allah foola ku darso daabay u dar la foola waa ku dar ugu haysana aad buu salaamay aniga isku abjibaar gacali wala aad buu salaamay dalka laga daawaraya xirta calaalka ها يا سلام عمر بيقول لي سلام يلا محمد حسن naanays badan baa jirta abjibaar oo dadku ay ku yaqaanaan abjibaar gacali ma fanka ka hor bay ku baxday mise markii fankun bil la kowsato iyaduna la bilaabantay abjibaar gacali abjibaar gacali horta ninaan saaxiibnimo ay bixiyay marka hal hays bay ay lagu bixiyay marka waan ku bedel ciyaar jala yaryar baan u af ahaan u oran jiray waa gacali soo laadi xagarada waxaan u gartay ma taqaan dadka badan xarifiin tahay maartay kubada loo baasin baa baryato abta baxada Allah gacali soo baasay xaleeyay adu ninka dheero garoonka dhex taagan wada suuro wala xaleeyay wala gacali wallahi wala iga ficil baa eraygu hadeer sheegay isku filan saacadiisa xaasta tawilot waxaan leedahay inaan saaxiib ahaydan ba ku bixiyay fanka ka hor abjibaar gacali saaxiibka isku filan sandisan hadeer wada maqlanay wuxuu yiri waxa weeye anigu saaxiibka abjibaar gacali dawanaan aad u taageero soo ku sheegay fankana waxa weeye baase buu ku yiri باستر كم أورا باستر باستر ها aniga u kacay baase bedelid isku filan inuu kale wada fadhin ama baase weeye marka maxaad ka leedahay ereygaas asadu ereyga abtigay sheegay afari waxa weeye tusaale waxa weynii tusaaleynaya hadda waxaan ku wada hadlaynaa samaha hadalkii caadiga ha hadal haamay ugu tusaaleynaya haddan anu hadlay war Cabdiqaro aan yiraahdo dan sa war Cabdiqaro dhe war Cabdiqaro abti war subxaanaysa waa halkaa weeye altoodka dowladda bigiis oo noqon doona ma kacna odaya waatay waxaan ku weydiin lahaa abjibaar gacaliyow aan iska kaftano waxa weeye dhankii kaftankana aan yara gudubno su'aal yaraan jecelahay labadana inaan weydiiyo weeye qof kasta dunida wax buu ka helaa dhinacyo fara badan dooquna wuu kala duwan yahay dhanka cuntadeenu beedhan ninka ma garanaya waxyaalo badan u keenay dhanka cuntadeenu beedhana cuntada nooceed ka heshaa abjibaar gacaliyow ما شاء الله ما شاء الله والله عتب والله وكاله ورتي adiguna أنا لبنيت isaga waa sheegay أنا لبنيت أنا بشعلة hay لبنيت أنا بشعلة maxaa sheegay libniyad waayo لبنيت دي وهطوا وعنتو بدنا يعني عسمده كان لو سميو oo dib macaankii macaankii marka waa macaan oo cunto maro karno moogtahay laakiin anu taasan markaas la yeeto maxaad maanta maxaad hadii la yiraahdo maxaa xafada ku sameeyay la yiraahdo la weydiiyo waxa qadada maanta labaniid ku sameeyay qadada wax kasta waa cunaa cashada wax kasta waa cunaa abjibaarna waa boorash weeye isagoo boorashka aad adu la qabto wala fleftaan ma abti يا داود يا شيخ أدون السلام عليكم حنا ندون السلام waa iska gabtan wey oo mar kale barnaamij kari rabadaan show aniga laftiga ma arta caawad u qoslay
maadaama ay dee garabkayga fadhiyaan isku filan iyo cabdijibaarka cali cabdijibaar heese fara badan baad leedahay intaanan ku noqon isku filan oo muddooyinkii ugu dambeeyay dadweynuhu ay aad u jeceliin aad u dhegeystaan aduu heesaha gateed u jecesha wallaahi nina waxaan ku adhigiisa ma kala jecla hay marka waa jecla heesaha wada jecelay baad leedahay jecla marka su-aasha halkaa waad iiji binaarigiisa ma kala jeclin ha ku cadayn binaarigiisa kala jeceliya laxanka kala jecesha raxmadaada kala jecesha anugu su-aasha ma hore waa dhameeyey jawaabta waa dhameeyey mar hadduu yidhi xoolahayga nina ma kala jecla anuu soo noqdo dhankaaga isku filan aan kuu soo noqdo mar kale iyo adiga haye waa kuu fadhiyaa weli waxaan ku guud jirnaa barnaamijkeeni way dhanka midabada say isku tihiin idinku midabada badan imaka dumarka maka dharka maka dharka aynu ka horeyno midabada dharka kee jecesha midabada dharka horta waxaan jeclahay midabka cad waa kaad xidhanta imika midabka cad adduunkaan jeclahay haye inkastoo dadka qaarkood ha warni adagaaba madow waad ku sii madoobanaysa waad ku farxmanaysa laakiin dee markaan ka hadlayo dharkaan jeclahay shakhsiyan waxaan jeclahay dharka cadcad baan jeclahay haye dharka madmadowna qudhis waan jeclay isagana haye marka labada wax dhaafay garan maayo waxyaabo badan baa soo baxay soo zeli iyo canaafid waxbaa soo baxay waxaana garan maayo waad uma taqaan maxaa ma yaqaani caddaan iyo madow ma kala saaraba haddaad igu tiraahdo imika soo zeli tilmaam wallahi wax alla waxaan kuu sheegi karaa kaadu midabada waxaad leedahay caddaan iyo madow baa ka aqaana caddaan iyo madow iyo waxa isku jira adigu adigu dee waad garanaysaa ya caanashaha ma kaa xidhan taha ya aduu dhankaaga ka war cabdijibaarow markaa faraburoojin buu wadaa cabdiqaliyo hey subax iyo wax hey horta waniga xidhanba caddaankaaga dee waa xidhanayo hey u muuqata hey caddaankood faafariidkiin wey iyo huruudi loodaa xidhan isku filan aan ku noqdo qof kastaa meel buu jecel yahay inuu dalxiis tago dunida xaggee jeclaan lahayd inaad u dalxiis tagto marka laga hadlayo dalkeena horta aniga su-aalaha hoos meeshaad dhiginay adigu jeceshahay su-aali weydii caadi waxaad igu tiraahdaa dalka halkeed ugu jeceshahay inaad u dalxiis tagto Meel saan allaale- kaga joobo meel allaalid meeshaad dalkaan jeclaha inaan u dalxiis tago ceer gaabo dhulkeena su-aasha haddaba kuu furantay jawaabtaada qalbiga ku jirta waad sheegi kartaa jawaabta qalbiga ku jirta waad sheegi kartaa kanada ka dhigba caawa markaa waa isla garan aniga iyo daawadayaashii cabdijibaarka cali ag fadhiya isku filanmaysi uu jecel dalxiis taga inay kanadan tahay halkaa waa qirna caawa miyaad ka noqon cid kasta waa ku maqlaysa miyaad ka noqon maya dee su-aal baa weydiisa ka noqon maayo wala kaga joogo dalkana waxaan jeclahay inaan ceer gaabo tago maydh tago horta weli maydhna ma arag ceer gaabo laakiin waan tagay maydh iyo xiis iyo godkeera laga dhex baxa maarata halkaa inuu ilaahay mar markaa insha allahu tacaala igu simo nabad ku marto weliba nabad inaan ku maro insha allahu tacaala ayaan jeclahay iyo saylac halkaan aan maro sacaadadiin iyo sacaadadiin aywa dhulka inaan maraan doonaya doontaan ma raaco insha allahu tacaala aniga cabdi jabbar mar baan hees ku soo duubi doonaa insha allah ma aragso maaha insha allahu may ma arag israacina marka anaa hore u arkay anaa labadi nabadi dalxiis ma tagta ma berigi barnaamijka carruurta ka soo diyaarisay waka halkaasaan ka diyaariyey anaa labadi naba martiitiid wey wey dhankii cabdijibaarka caliyaan usoo wareegaya isagana cabdijibaar wax ka jeclaan lahayd isku filan waa kaa garabkeena fadhiya waa inoo sheegay waxa uri waxaan jecelahay inaan u dalxiis tago haddii aan meel dalxiis u degayo waa Canada dalka haddii ay tahayna waa ceerigaaba waa soo waday adigu dhankaaga ka waran horta somaliland hadday noqoto meelaha ugu quruxda badan leh dee waa gaale iyo
meelahaas ugu qurux isla ergaaba labadina wali joogtaan meesha ugu qurux badan uu sheegay walow aanan weli arag Saacadiin iyo ergaaba arag ma arag weligii ma aragtay waxa barnaamijka saara ku diirna adiga diirna adiga ma aragtay ergaaba afar jeer baan tagay wallah afar jeer baan tagay laakiin xagga xiis iyo meedhiyo ma talaabin oo adiga ku ducaysan ma talaabin waan tagay laakiin markii dhow rawaad ku sameysay bad martay ergaaba waan tagay afar jeer baan tagay daalo ma soo aragtay waayo anigu laakiin imka ma tagin waxay igu dambeysay dhowr sano ka hor 8 sano ka hor waxay igu dambeysay meelaha 9 sano ka hor waayo barigaan asuulka dhigan jiray baa sii fogeysay asuulka markaan dhigan jirnay baa fasaxa ayaa ka diganayd ilaahu naxariistay Allah yarxam markaa kaasan ayuu ugu tagi jiray markaa wata abjoor adigu waxaa tiri markaa ergaaba dhanka dalka ha xagga dibaddana dibad bay noqoto xaggeed jeclaan dhanka dibaddana xagga isku wanaagsan ku noqo hal mar ku noqo su-aasha qalbiga jawaabta qalbiga ku jirta inuu baahan inaan ogaano su-aasha qalbiga ku jirta su-aasha soo taa jawaabta aniga iyo isku filal iyo daawadayaasha dhan waxaan martuunay caawa inaan ogaano jawaabta Minneapolis Maraykan marka waxaa la odhan karaa sidaad saaxiibtiin baa dalal jaar ah ma garanaysaa isugu والله لا قاعد عدوني sida waxa la odhan karaa de waxa weeye saaxiibtinimada wanaagsan bay muujinaysaa sida saaxiibtiin baad laba dalo isku dhowna ma garanaysaa u doorateen dalka Maraykanka iyo waxa weeye iyo dalka Canada marka hadda asxaab far badan baad ku leedahay taageerayaal far badan baad ku leedahay Minneapolis Maraykan ولما بوح بي إنه هو السلام anigu waxaan aad u jeclay daawada inaan ku darsado inaan ku dalxiiso meeshan aad ku jecelahay inaan ku dalxiiso aan tago aan mar walba joogo waxa weeye aan waqti badan ku qaato waxa weeye halkaa uu sheegay weeye wax xajka waxa weeye beedka barakaysa dalka hadday noqoto dalkana waxa weeye halkaa aad sheegtay dee inaan idin dalxiiskeenayo adiga iyo abjibaarka cali waa dhanka iyo magaranaysa jasiiradda zeyla jasiiradda sacaadiin aan idhaahdo ku taalla gobolka magaranaysa xagga iyo ma waa diyaar weeye arrinkaasi waa ballan weeye cabdijibaarka caliye iyo waxa weeye rabadaan tahayna dhaafto cabdijibaarka cali isku filan arrinkaas waa dhan weli baan ma arag meesha ha ma waa daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii aad iyo aad baan u salaaminaa daawadayaasha meel kastoo guud ahaan caalamka naga daawanayaan barnaamijkan waxaa igu martiya jilaasara isku filan iyo fanaan cabdijibaar gacaliye cabdijibaar haye horta jaamidkan ka faa'iideystay mar dhow isku filan guux yar ka maqlayay aan ka faa'iideystay waxaan salaamayaa hibaaq waan salaamayaa oo cali baan salaamayaa gudoomiye kooxdan salaamaya daahagaas iyo asxaabtii meel kastoo dunida ka joogaan hooyadii macaana waan salaamaya maasha allah aniguna waa salaamayna maama macaan horta ilaa cawdha adaa su-aal na weydiinaya adiga miyaanan ku weydiinayn waa idin free daabtu ninkan wax ku dhahay adigu weydii waxaad ku weydiinayaa awalkii ugu horreeyey ee hoonkiiba lagu keeno ha dhamaysta su-aasha ha dhamayste hey halkaa u galay ha dhameeyo odaygu su-aasha siida waa ku sugaynaa hoonkiiba t v in badan baad ka shaqaynaysa waa run wey awoo yar waa lagu keeno waa run wey marka maalintii ugu hortay hoonkiiba lagu keenay ad weli waad yaray soma waa run qof markuu yar yahay markuu weynay way kala duwan oo marxalado kala waqtigee bay ahayd waxaad dareentay markii waa runtii aad baad mahadsanta cabdijibaarka cali waa su-aal aad u wanaagsan oo dadka o dhan baa weydiiya isku filan laftigiisana waa ka filayay su-aashaas laakiin jawaabtaan sii siiyo waxa weeye 2010 bishii 12 bishii 12aad meelahaas ayaan Home Cable TV anigoo 12 jir shaqo u doontay waxa weeye iskuulka Aydam la yiraahdo u dhawaa xaafadeedo saxaafada lagu baran jiray baan aad u jeclaayo macallin Mukhtaar la oran jiray jeclaan halkan aad iyo aad ugu salaamayo ayay caawiyay iskuulkii uu geeyay dugsigii saxaafada ayaan halkii ku galay dabadeetana waxa weeye inaan yar ma ahay dufcad dhan anoo in badan dhiganaya layga reebo la yidhi seed u qalin jibinaysa leena yar baatay saxaafadan iyo hawlaan u kaadi aniguna
koob iyo toban baan ku bilaabay koob iyo toban jir koob iyo toban jir baan ku bilaabay maasha Allah u yara xoog ها deetana haddana kama hadhan ilaa wixii waan jecelahay 6 bilood oo kala dhigtay sidii baan deetana xafladii qalinjibintan ka magaranaysa halkii ku dhiganay hoonkii wal baan u shaqo tagay shaqadii sidii baan magaranaysa la igu siiyay waxyaabo aad ka u qoslo wax kamid ah maalintii ugu horeysay ligu maxaad soo deynaysaa baan warkan soo deynaya ninkii interviewgii qaaday wuxuu gurday wad yarta sad war soo deynay haddana barnaamijka sportigan isku magaranaysa walaad cid sport magaranaysa halkee kuga soo baxaysaa macallan aad iyo aad u salaamaya Allah u naxariisto imka geeriyooday caruurtiisa iyo reerkiisa aan ka salaamay kasta meel odhan jiray qoraas sare ah baa igu barnaamijka caruurta soo baxaysa anna waan yaraa barnaamijka caruurtiisa ay diyaarin jiray halkii baan ku galay hayaankii halkii baan ka bilaabay wayna soconay waniga halkaa joognay caruur ilaa ciyaaro maasha Allah adigu ma jeclaan isku filanayna adiguna su'aal weydiiso sanad hadhow tolo odhan dhankii cadaaladda laga tago Cabdijibaar Gaalimba anigu hal su'aal ma ku weydiin lahaa barnaamijkii ma dhamaada barnaamijka waa dhamaada tani ma kala kaxay وصلى الله وبارك وي aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa isku filan jilaasare iyo fanaan aad u qaaliya Cabdijibaar Gaalimba Ramadaan Kariim baan dilanay isku soo naqad wanaagsan insha Allah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa injineerka de waxaan oo dhan kala wada ee kala habeenaya injineer Maxamed Mawlid iyo dhammaan howlgallada Home Cable TV iyo waliba gudoomiyaha Home Cable TV Farxaan aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay guul waxa soo saartay isagoo ciyaal ah waxaad u marayaa isagoo de ma sha Allah raystay marka waa guul nimanka shaqaalihii ku bilaabay TV-ga inay wali joogaan ma sha Allah wariyaal badan oo soo saaray inta hambaliyaan ku haya amaaniga ma hawa iga dhab anagana aad baan u salaamaynaa gudoomiyaha Home Cable TV aad baan u salaamayaa nabadgelyo Ramadaan Kariim waa idin salaamayaa salaan dabadeed waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim waxaan doonayaa maanta inaan bulshada inaan u sheego oo aan gaarsiiyo shirkaddan Dahabshiil Group la yiraahdo Hyundai inaan 3 sano la macaamiltamayay inaan gawaari different aan ka kala qaatay karata la yiraahdo gaari kale 3 gaari in yani ay aad iyo aad dadku u soo dhaweyso in soo dhaweynteeda ay ma sha Allah tahay haday noqoto xagga service-ka gaariga haduu ka xumaado oo kaleete spare parts-ki dibadaha laga dooni jiray ama carabaha laga dooni jiray inaan laga doonaynin meeshan ay ku taalo ee lagu galinayo dad maxaa la yiraahdaa ay joogaan Soomaali Hindi ku qalab galinayo marka waxa idin dhihi lahaa ku soo dhawaada shirkadeena aad iyo aad horumarkana gaarsiisay ee nala tartan siisay dibadaha ee gaari 2000 ee gaari 2001 ee noo keentay ee dhinacii shiftigii midigta ka soconaya ee maantayta ee maaragtay safetiga xataa uu 100% yahay waxaan idinku soo dhaweynayaa inaad timaadaan aad baa leedin soo dhaweynayaa lacagta waa leedinka sugayaa de soo dhawaada idin leeyahay shirkadda group Dahabshiil ku soo dhawaada